أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعنا ونكسن لما أخيار تقيمها هي قضية مدنة وميل كستا جوجتان وقت كستيد انتهي وقت قاعدين وعنا دو بدبعد إيه نحريسي بنا كوركينها هاتو حمد الله يحيي رمضان مبارك. برنامج كان ما توحى داري هاي اغتنم 5 قبل 5 كفاية سو 5 arrimood ka hor inta aanay 5 ku iman. waa arrinta koobaadee ka faa'iidayso shabaabnimadaada inta aan gabow ku iman, waayo shabaabnimadu waa waqtiga ugu qiimaha badan ee qofka noloshiisa soo mara. uu wax kasta awoodo, wax kasta qaban karo, awood jidheed mid caafimaad, wax kasta uu qaban karo, jirkiisu buuxo. balse markuu hadhow gabowga qofku waxa weeyaan wax badan ayaa uu ka gaabinayaa, mid awoodeed iyo mid caafimaadba qofkii waxa weeyaan waa ka gaabinayaa. waa arrinta kale ee labaadee ka faa'iidayso caafimaad qabkaaga inta aanay xanuun ku iman, kula soo darsin. intaad caafimaadka haysato ka faa'iidayso. caafimaadku waa qaali. caafimaadka waxaa la dareemaa qofka marka uu xanuunsado ayaa u dareemaa, inta kale lama dareemo. ka faa'iidayso intaad caafimaadka haysato ee aan xanuun kula soo darsin. waa arrinta saddexaad ee ka faa'iidayso qaninimada inta aan faqri kula soo darsin. intaanu faqri kuu iman ka faa'iidayso. mana aha marka lagu leeyahay ka faa'iidayso qaninimadaada, ma aha meel kasta intaad ka dhacdo xoolo badan soo ururi. xaaraan iyo xalaal midnaba waa aaba yeelin maaha. ka faa'iidayso alle subxaanahu wa tacaala waxau kugu arsaaqo inaad waxa weeyaan wax ka bixiso ood sii horumarsato maalinta dambaysa, yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man aata allaha biqalbin saliim. maalintaas sii horumarso. oo sadaqo bixi, oo waxaad haysato wax ka bixi. qanaacatul qalbina yeelo, oo waxa alle kugu arsaaqo ee ku siiyo, ha yaraadaan, ha weynaadaan, ha badnaadaan, ku qanacsanow oo ilaahi subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaq. waxna ka bixi. sadaqaduna maalka waa ay sii barakaysaa, ma nusqaamiso. waa aan ku batay laakiin ma nusqaamiso. arrinta afaraad ka faa'iidayso firaaqada intaad haysato inta aanad mashquulin. firaaqada intaad haysato waa intaad wax qabsan karto, laakiin markaad mashquulsho hadhow waxaad qabsan kartaa ma jirto. intaad firaaqada haysato, intaad waqtiga haysato, ka faa'iidayso waqtigaaga iyo firaaqadaada, oo ku camiro oo ku qaado alle subxaanahu wa tacaala wax kuu dhaweynayo oo alla raali ka yahay, oo maalinta dambena wax kuu gooya. arrinta shanaad waxay tahay
ka faa-iideyso caafimaad qabkaaga inta aanan geeri ku haleelin. adduunyadan safar baa lagu yahay, waa laga tegayaa, waa lagu kala horeynayaa, balse intaad waxa weeyaan caafimaad qabto aanay geeridu ku haleelin, maalinay taadi noqon doonto ma ogid. waxa weeyaan ka faa-iideyso oo waxa weeyaan alla subxaanahu watacaala caafimaadkaaga ku siiyey kaga faa-iideyso wax maalinta dambe wax kuu gooya oo rabbi subxaanahu watacaala raalli ahaanshiisaad ku hesho. waayo markaad dhimato kuwii dadkuugu xigay, kuwii ku jeclaa, kuwii ku ilaashanayay adduunyada ayaa waxa ay kuugu yeedhayaan mayd. magacaagii waa isbedelayaa markaa naftu ka baxda ayuu isbedelaya, waxaa isku bedelayaa maydka inaga aasa. ubad haddaad ka tagtay waxaa la odhanayaa ubadkii marxuumkii hebel ka tegay. laqabka markaa lagu bixinaya ku raacaya ee magaca lagu siinayaa, hadduu magacaagiiba lagu yeedho waxa uu noqonayaa marxuumkii, haddii kalena waa kaas halkaasaa markaa mayd lagugu yeedhaya. dabeetana qabriga lagu dhigaya, iilka lagu dhigaya, ciidda iyo dhagaxaanta lagugu dhisaya, ciidda lagugu sii dul shubaya, dhagaxaanta lagugu waxa weeyaan dusha lagaa sii saaraya. waqtiga firaaqadu waa waqti cajiiba oo waxa weeyaan maanta dhalinyaraa tahay, berri waxaad noqonaysaa qof weyn. maanta firaaqaad haysaa, berri waxaad noqonaysaa qof mashquulsan. maanta caafimaad haddaad haysato lagama yaabo berri inaad haysato. maanta haddaad nooshahay oo xayi tahay, berri waxaa laga yaabaa inaad waxa weeyaan tii xaqahayd kugu timaado. adduunyadiina waa isdaba wareeg. aynu ka faa-iideysano dhammaanteen. alla subxaanahu watacaala wax raalli gelinaya oo alla subxaanahu watacaala inoo dhaweynaya aynu ku qaadano. waa layna weydiin doonaa maxaad ku qaadatay cimrigaan ku siinay, cimrigaagii maxaad ku dhamaysatay, caafimaad qabkaagii iyo cumrigii iyo waqtigii aan ku siinay maxaad ku qabatay ad ku dhamaysay baa lagu odhan doonaa maalinta qiyaame. markaas dariskeena maanta ama kelmadeena maanta waxay daaran tahay